وتاريخ waxaan haatan ku soo dhawaataan barnaamijkii Xasusxaar barnaamijkan waxaan ku eegaynaa dunida iyo habka loo abuuray waana miro ka yimid Suuganta xogta aanu ka hadlayno haddaba dhammaan xogta aanu ka hadlayno umurtan iyada ah sida caalamku ku asaasmay nolosha dhabta ah ee ka jirta dunida waxa had iyo goor ay xogtu ka timid Suuganta caalamka oo idil Soomaalidu waa ka qayb dadka Suugantaasi tiriyay isla marhaantana waxa ay Suugantu ina baraysaa dhamaanba waxa dunida ay ka samaysan tahay abuurkeedu sida uu yahay guud ahaan In the beginning, there was chaos and darkness in the void when God said, "Let there be light." And out of the chaos, God brought forth order, which was the firmament, and he called it heaven. God gathered up the waters in one place under heaven and caused the dry land to appear. God was pleased like the seas and the light. The earth was also good and made beautiful by the forces he had unleashed. Then God said, "Let this earth yield." And the earth brought forth all that grew in green and fruitful bounty. And God divided the day from the night, making the sun to rule the day, the moon and the stars to rule the night. And he made them signs for the seasons. Then God made the waters to swarm with creatures and fill the skies with wings of birds. And he made the animals, each to their own natures and to their places in the earth, in the air, and in the seas. And all the wonders of creation were surpassingly beautiful, yet incomplete. So God made man. Male and female, God created humanity in his image and gave man dominion of the earth. And then, for the sake of all generations to come, God commanded them to write down the stories of their search for God and the never-ending struggle between good and evil, and to collect them into a treasury of inspiration we call the Holy Bible. sida uu ka hadlayo linkiga Englishka oo aad maqlaysaan dunidani marka uu alla abuurayay waxa uu sameeyay sheeko kofra ab ah oo uu magac daray in wanaagu uu xukumo mugdiga wana in habeenku oo noqdo meete dadku ay iska tarmaan dunidu iska taranto bilahan iyo dad ahaanba isla marhaantana wanaaga maalmeed ee jahliga looga baxay mugdiga uu xukumiyo in uu ku qaldanaa abuurista oo dunida iyo dadkaba abuuray iyo inuu ku saxna waayo way adkeed in dadku ay isu arkaan dad qaldan oo loo baahan yahay in la soco markii ay abuurmaan kadib taasi oo ay u sabab tahay jahliga dhibaatada iyo waliba qaharka ay ka sameynayaan koonka lagu abuuray waaba ayada quraan markii aad aragto sida ay shaxdaasi u dhacayso in habeenku oo noqdo mid maalinta xukunto wanaagu uu xukun ku rido si looga baxo mugdiga iyo jahliga ayadahi yuliju layla fi nahaari wa yuliju nahaara fi layli ayaa u daliil ah in mar waliba samaantu ay xukun ku ridayso xumaanta isla marhaantana dunidu ay noqonayso mid hadba hagaagta aakhiro iyo adduunyada waa kuwa iscogmanaya sida geerida iyo noloshuba ay iscogmanayaan Soomaalida
ayaa ka hadashay aakhira waana ummadii ugu horreeyay oo koonkooda aakhiro xageed naga xigta leeyahay lagagana doodo si aatee abwan hadraawi oo ugu cadcada abwanadii qoraymiraha ku saabsan aakhiro ayaa isagu dhan kale u weecday waxaana kaga bogan doonaa darsiga kuwan ku xiga